السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta. maanta waxaynu ka hadli doonaa qayb kale waynu kaga hadli doonaa network iyo hostis waxa uu yahay. networka amaba hostigu waxaynu ku arki doonaa waxyaalaha ay yihiin iyo siyaabaha loogu kala garan doono dhammaantood. haddaba ugu horeyn aynu ku horeyno network waxa uu ku yiri first octet-ka amaba qaybta koowaad ee 8 ah ayaa lagu magacaabaa network identification. waxa weeyaan waa godka lagu kala saarayo amaba lagu aqoonsanayo network-gaaga. tusaale ahaan waxaynu soo qaybinay network-deeni 4 qaybood ayaynu soo qaybinay oo qayb kastaba ay 8 tahay. afartaas ayaynu soo qaybinay. marka qaybta firstigaas ugu horeeya ayaa waxaa la dhahayaa waa network. qaybtaas ayaynu dhahaynaa waa network. marka waxyaalaha ay tarto qaybtaasi waxa weeyaan identification, in lagu aqoonsado network-gaaga in lagu aqoonsado. oo tusaale ahaan qaybtan waynagii soo kala qaadaynay classeska markii aynu maraynay class A oo kale waxyaalaha lagu garanayo ee uu class B ga kaga duwan yahay class C ga kaga duwan yahay waa qaybtaas koowaad ee maaha hostiga. sidoo kale waxa uu ku yiri qaybta labaad iyo qaybta saddexaad iyo qaybta afaraad oo 3 qaybood ah ee network-gaaga kuwaasoo octet ah oo 8 ka kooban midkiiba 8 uu ka kooban yahay waa host identification. waxaa lagu aqoonsanayaa iyagana hostigaaga ama inta components ee computerkaaga ku xirmi doona ayaa lagu aqoonsanaya. markii aynu maraynay casharka subnet maskiga waynagii ku qeexnay siyaabaha loo xisaabiyo god kasta inta computer ee uu qaadayo ama inta hosti ee ku soo xirmaya. marka haddii aad company weyn aad tahay oo tusaale ahaan company aad weyn haddaad tahay oo deviceska way fara badan yihiin 2 milyan ay wax gaadhaan waxaad adeegsanaysaa waxa la dhaho network-ga waliba qaybta class A ga ayaad adeegsanaysaa. isagu wuxuu chance kuu siin doonaa inaad components fara badan aad network-kaaga aad ku soo xidhid ayuu chance kuu siin doonaa class A. marka qayb 3 qayboodna waxaa la dhahaa hosti ayaa la dhahaa. qaybtaana waxaa la dhahaa network. waa kuwa halka inooga muuqda class A markaynu joogno qaybtaas koowaad ama godkaas koowaad ayaynu leenahay waa network oo waa kaynu ku aqoonsanay. network-geenaasi wuxuu ka koobnaa doonaa 1 ilaa iyo 126 inta u dhaxaysa waa network. intan kalena waa hostis oo iyagu isbedelayaan. laakiin network-gaasi marnaba isma bedeli doono. waxa uu noqon doonaa tirada intaas u dhaxaysa class A-ga. class B haddaynu nimaano waa sidaas lamida network godkaas ayuu baa masti ahaanaya markasta oo tirada ka soo qaadatid. tusaale ahaan haddaynu ka soo qaadanay 129 ilaa uu 129 kaas u dhammaanayo waxaa isbedeli doona hostigaas laakiin isagu isma bedeli doono. soo kale class C-guna waa sidaas lamida 3 ayaa noqon doona hosti. class C-ga kaas ayuunbaa hosti ka noqon doona laakiin 3 kale waa network oo sidaas ayuu kaga duwan yahay. class B-gana labadaas ayaa network-ga labadaasina waa host. class A-guna waa kaasunbaa hostiya kaasunbaa network-ga 3daas ayaa isaga u hostiya. marka way kala duwanaanayaan class kastaba. oo class wuxuu haystaa 3 hosti ayuu haystaa, classna 2 hosti, classna 1 hosti ayuu haystaa. oo halka hosti waxay ka dhigan tahay in uu qaadi doono 256 device 256 device
ayuu qaadi doonaa. marka hore ayaynu soo xisaabinay oo aynu ga soo hadalnay. format ahaan waa kuwan ama calaamad ahaan inagoo u kala qaybinayna qaybo inagoo hostiga u kala qaybinayna iyo networka. waa kan class A-gu kaas ayuunbaa kan networka, class B-ga labadaas ayaa kan network noqonaya, class C-gana saddexdaas ayaa network noqonaya. sidoo kale haddii aynu sawirka yar isla eegno, sawirka yar waxa uu muujinayaa IP ama IP address ayuu muujinayaa. IP-gani waa class C weeyaan, waa 192.168.123.132. waxa uu muujinayaa IP-gaas class C-ga ayuu muujinayaa. qaybtani waxa weeyaan waa iyagoo binary ah oo cashar gaar ah ayaynu ugu tegi doonaa binary-ga iyo siyaabaha loo soo saaro. tusaale ahaan waxaynu niri wuxuu ka kooban yahay 8 good ayuu ka kooban yahay ama 8 portion ama 8 bit ayuu ka kooban yahay, waa ka 8. sidoo kale qaybtana waa ka 8 ayuu ka kooban yahay. marka siyaabaha loo xisaabiyo binary-gana waynu tegi doonaa, laakiin imika waxaynu tilmaami doonaa inay saddexdaasi ay u noqon doonaan IP-gaas class C ay u noqon doonaan, amaba ay network ay u noqon doonaan class C-ga, kaasina uu class C-ga u noqon doono host. dhammaantooda lasu wada geeyana wuxuu noqon doonaa 32 bit. markaa siyaabahaas ayaynu ku aragnay maanta waxa la dhaho network iyo host. weli waxaynu ku guda jirnaa koorsadeena qaybtii labaad, taasoo aynu kaga hadlaynay IP address-ka iyo waxa uu yahay IP address-ku waxa uu yahay. markaa waxaynu ga codsanayaa inaad channelka noo subscribe gareysaan, asxaabtiinana la wadaagtaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.